Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka tiyub xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idiin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah ciidamo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo gurigiisa ku dhex dilay sheekh caan ka ahaa gobolka Shabeellaha Hoose. Ra'iisul Wasaare Khayre oo safar degdeg ah ugu ambabaxay dalka Sacuudi Carabiya. Wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya oo ka shifay heshiisyo badan oo dowladda federaalka ay uga baxday Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Al-Shabaab oo war ka soo saartay musharaxnimada Mukhtaar Roobo uu isku sharaxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Somaliland iyo Puntland oo mar kale ku dagaalamay deegaanka Tuqaraq. Madaxweyne Xaaf oo sheegay inuusan caqabad ku ahayn in dowladda federaalka ee Soomaaliya wada hadallo dhab ah lala galo. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb. Mareykanka oo war ka soo saaray saxafiga lagu laayahay qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ee Istanbul. iyo Turkiga oo cadaadis ku saaraya Sacuudiga in la baaro qunsuliyadiisa Istanbul. Intaas waxa ay ahaayeen warkii oo kooban u diyaar garooba warkaas iyo war kale oo dhameystiran oo aan idiin sheego anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Warkii oo dhameystiran. Wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo Soomaali iyo ajaanib isugu jira ay gurigiisa ku weerareen kuna dileen sheekh caan ka ahaa degmada Walaweyn ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Weerarka ayaa dhacay xalay saqdii dhexe markii ciidamo loo malaynayo inay yihiin Mareykan iyo kuwa commandoska Soomaaliya ay u dhaceen guriga uu sheekha degnaa kuna dileen. Waxaana sheekha lagu magacaabi jiray Macallim Nuur Cismaan Bilaal. Dadka degmada Walaweyn ayaa sheegay in sheekha uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay deegaanada, isla markaana tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo cilmiga diinta Islaamka uu ka akhrin jiray masjid ku yaala degmadaasi, iyadoo aan la ogeyn sababta ka dambeysa in la qaarijiyo sheekhan. Dadka degmada Walaweyn ayaa si aad ah waxa ay uga naxeen dilka sheekha loo geystay, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa la socday ee caddaanka ahaa. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo dhanka kale ka soo baxay maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee ku aadan dilkan xalay loo geystay Macallim Nuur Cismaan Bilaal oo tafsiirka Qur'aanka Kariimka ka akhrin jiray masjid ku yaala degmadaasi Walaweyn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa safar degdeg ah waxa uu ugu ambabaxay dalka Sacuudi Carabiya. Warar goordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Aadan Cadde ayaa waxa ay tibaaxayaan in ay soo caga dhigatay gudaha garoonkaasi diyaarad ay leedahay dowladda Sacuudi Carabiya. Wararku waxay sheegayaan in diyaaradan ay ka imaaday magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya, isla markaana ay garoonka ka qaaday Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Diyaaradan oo qaaday Khayre ayaa la soo sheegayaa inay tahay mid qaas ah oo loo soo diray Ra'iisul Wasaaraha dalka, sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah oo ku sugan gudaha garoonka. Waxaana Khayre ku weheliya safarkiisa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ambabaxay dalka Sacuudiga ayaa lagu wadaa in halkaa uu ku nugaan doono muddo 3 cisho ah. Sacuudiga iyo Khayre ayaa ka wada hadli doona arrimaha khilaafka Imaaraadka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ku hayso xulafada Sacuudiga. Sidoo kale Sacuudiga iyo Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa si qoto dheer uga wada hadli doona ballanqaadyo aysan weli fulin Sacuudiga iyo arrimo kale oo muhiim ah oo labada dal ka dhexeeya. Dowladda Sacuudiga oo dana siyaasadeed gaar ah ka leh Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan sababo la xiriirta fahan la'aan ka taagan siyaasadda iyo in wax walba si is-afgarad uu ku dheehan yahay labada dhinac ay ku dhameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, Khayre ayaa lagu wadaa in heshiisyo cusub uu la soo galo dowladda Sacuudiga si meesha looga saaro mugdiga ku aadan xiriirka labada dhinac. Wasiirkii hore ee difaaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiisyo badan uga baxday Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dowladda ay wado. Xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in dowladda ka gaabisay qaadista duulaan
saf ballaaran leh oo lagu ekeenayo deegaanada shabaab ay ka haystaan gobolada dalka oo dhan. Bilihii u dambeeyey dowladda kuma howlaneen in lala dagaalamo al-shabaab, waxayna ku mashquulsanayd inteeda badan maamul goboleedyada, siyaasadda iyo hiigsiga sanadka 2020. taas ayaa ka marin habaabinaysa howlihii asalka u ahaa in dalkan xasilooni lagu soo dabaalo. waxaa sidaasi uu xildhibaanka u sheegay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. waxa uu sheegay in muddadii uu fadhiyey wasaaradda difaaca la isla qaatay inaan la kala joojin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, lala hadlo inta wada hadalka ogal, wixii ka soo harana rasaas lagu maquuniyo. xildhibaan cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ahaa ninkii muqdisho keenay sanadii hore mukhtaar roobo abuumansuur ayaa dhinaca kale ka hadlay dooda dowladda ay gelisay musharaxnimada mukhtaar roobo abuumansuur. dowladda ayuu ku dhaliilay in roobo ay uga baxday balamo badan oo ay wada galeen, taas oo ay qayb ka ahayd inuu isku soo sharaxi karo doorashada baydhabo ka dhacaysa 17 bisha dambe ee November. cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ahaa shaqsigii bilaabay wada hadalka dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo Sheekh Mukhtaar Roobo Abuumansuur ayaa waxa uu sheegay in qaabkii loo ballamay in badan oo ka mid ah in dowladda dhankeeda aysan waxba ka fulin. waxa uu sheegay qodobada la isla afgartay ee dhanka dowladda weli aan ka fulin inay ka mid ahayd in si wada jir ah oo dalka iyo dadka dana u ah lagu wada howlgalo, balse arrintaasi iyo kuwa kaleba aysan weli dhinaca dowladda waxba ka soo muuqan. mukhtaar shabaab mar hore ayuu ka baxay, warkiisana wuu caddeeyey. dagaalo lala galay shabaab, wiilkiisa cabdulaahi ayaa kaga dhintay. marin habaabin ayaan u aragnaa in mukhtaar mar kale lagu tiriyo shabaab. dana siyaasadeed ayaa laga leeyahay arrintan, ayuu yidhi wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlayay VOA-da. waxa uu sheegay intii uu wasiirka ahaa wasaaradda gaashaandhigga in lagu ballamay shabaab intooda ku habboon in wada hadal lala galo, inta kalena dagaal toos ah lagu qaado, balse dowladda ayuu tilmaamay in arrimahaasi meel ay iska dhigtay oo ay ku mashquulsan tahay siyaasadda maamul goboleedyada iyo doorashooyinka dhici doona 2020. cabdirashiid cabdulaahi ayaa tilmaamay ololaha doorashada Roobo inay soo bilaabatay mar hore, dowladda haddii ay doonaysay in ay wax saxdana goor hore laga rabay inay soo saarto warqadda ay ku hor istaagtay musharaxnimada mukhtaar roobo. waxaana uu sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay is-hor istaagga lagu sameeyey musharaxnimada mukhtaar roobo uu isku sharaxay inuu noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed doorashada dhowaan dhici doonta. dhowaan warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu caddeeyey in mukhtaar roobo abuumansuur ay saaran yihiin cunuqabateeno caalami ah, islamarkaana xilligan aysan suuragal ahayn inuu isku sharaxo inuu noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. sidoo kale wada hadallo labadii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada Baydhabo, islamarkaana uu hogaaminayay dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, madaxa NISA iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxaa mukhtaar roobo lagu qanciyey in musharaxnimadiisa uu sii wato, islamarkaana ay dowladda arrintaasi ku fududaatay, raaligelinna ay ka bixin doonto. ururka al-shabaab ayaa waxa ay war ka soo saareen musharaxnimada oo mukhtaar roobo abuumansuur isku sharaxay inuu noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. al-shabaab ayaa markii ugu horeysay ka hadashay tallaabada oo mukhtaar roobo isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ku dhawaaqay toddobaadkii tagay. warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha afka al-shabaab ayaa bilowday inay warbixino ka sameyso dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee roobo oo horey uga tirsanaa al-shabaab ka oo uu ka wado magaalada Baydhabo, waxaana idaacadda Andalus ay u adeegsatay mukhtaar roobo erey ay ku sheegeen inuusan islaam ahayn. al-shabaab waxay sheegtay in mukhtaar roobo uu ku dhuumaalaysanayay safka mujaahidiinta oo uu culeys iyo caqabad ku ahaa jihaadka, iska badaa in uu wax taro. al-shabaab dhankooda waxaa sidoo kale ay muujiyeen in mukhtaar roobo abuumansuur wax culays ah uusan ku haynin inuu ka baxo al-shabaab, iyagoona sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay doonayaan in birta ay iska aslaan. Somaliland iyo Puntland ayaa mar kale waxa ay ku dagaalameen deegaanka Tuqaraq. wararka naga soo gaaraya deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaa ay isku fara saareen ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland. labada ciidan ayaa la soo sheegayaa inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo inta badan deegaanka laga maqlayay madaafiic culus oo ay isweydaarsanayeen ciidamadan. hubka ugu badan oo labada ciidan ay isku adeegsanayeen ayaa ah madaafiic, kuwa oo la xaqiijiyey in ay u gudbeen xaafadaha qaar oo shacab ay ku noolaayeen. dadka deegaanka
deegaanka ayaa waxa ay kusoo waramayaan inta ay madaafiicdan socotay inay maqlayeen rasaas goosgoos ah oo labada dhinac ay isku ridayeen. madaafiicdan ay isweydaarsadeen labada ciidan ayaa sidoo kale geysatay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dirirta ay dhex marayso. wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno deegaanka Toqaraq ayaa waxa ay sheegayaan in saakay xaaladdu ay degan tahay, balse waqti walba la filan karo in labada dhinac ay birta iska aslaan. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxa uu cadeeyay inuusan caqabad ku ahayn wada hadal rasmi ah oo lala galo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa kula shirayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa iska diiday warar sheegaya inuu caqabad ku yahay wada hadalka dowladda Soomaaliya lala gali lahaa. Xaaf waxa uu sheegay in shakhsi ahaantiisa uusan caqabad ku ahayn dowladda Soomaaliya, hase ahaatee waxa uu su'aal ka keenay sababta dowladda faragelinta ay ugu hayso maamulkiisa. waxa uu hogaamiye Xaaf tilmaamay inuusan diyaar u ahayn amar diido iyo in uu hor istaago amarada madaxda qaranka, hase yeeshee ay dhibayso in mar walba ay dowladda caqabad ku noqoto howlaha maamulkiisa. waxaan maqlayay kuwo dhahaya Xaaf waxa uu caqabad ku yahay dowladda. adeer, anigu kuma ihi caqabad, balse waxaan difaacayaa in faragelin lagu sameeyo maamulka howlihiisa. ka mas'uuliyiin ahaan waxaan idin xaqiijinayaa in Xaaf uusan dhib ku ahayn dowladda Soomaaliya. Galmudug cadaadis ay diideen maamulada kale qaadan mayso, haddii aynu diidnayna faragelinta xadkeeda dhaaftay macaqabad ayaynu ku nahay dowladda. waxa uu Xaaf cadeeyay in dowladda Soomaaliya uu ka tirsanayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin faragelin joogto ah, isu adeegsiga labada gole, dhaliilo joogto ah iyo waxyaabo kale oo uu tilmaamay inaysan wanaagsaneyn inuu ka sheego meelaha qaar. mas-uuliyiinta uu kulanka la yeeshay madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu ku amray in haddii isaga uu qaldan yahay ay qabtaan, balse waxa uu ku nuxnuxsaday in laga qaldan yahay. sidoo kale hogaamiye Xaaf ayaa tilmaamay inaysan weli jirin isfahan laga gaaray khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda dhexe, waxaana uu ku baaqay in xal loo raadiyo tabashooyinkooda. dhinaca kale Xaaf cod dheer waxa uu ku sheegay dhammaan waxyaabihii ay tabanaysay Galmudug in weli sidoodii ay u taagan yihiin, islamarkaana dowladda dhexe iska netirayso xalinta tabashooyinka xaggooda kasoo yeeraya. isla wararka Dhuusamareebna haddii aynu dib ugu laabano, Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay. waxaa saakay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug gaaray sarkaalka ONLF ka tirsan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Hargeysa iyo weliba magaalada Gaalkacyo. Qalbi Dhagax ayaa waxaa magaalada kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, kuwa oo u galbiyey madaxtooyada maamulkaasi looga arrimiyo. Qalbi Dhagax ayaa lagu wadaa in kulamo kala duwan uu la qaato mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo saraakiisha hay'adaha ammaanka. socdaalka Qalbi Dhagax ayaa salka ku haya xasilinta khilaafaadka ka dhex jira madaxda maamulka Galmudug oo imika gaarsiisan heerkii ugu sareeyay. waxa uu siyaabo kala duwan u qaabili doonaa dhammaan madaxda maamulka, isagoo ballan qaaday in halkaasi uu kasoo laaban doono isagoo xaliyay khilaafka madaxda maamulka kala fogeeyay. socdaalka Qalbi Dhagax ee magaalada Dhuusamareeb ayaa kusoo beegmaya xilli uu dhowaan sheegay in uu safaro ku tagayo dhulka Soomaalida, isagoo safarkiisa kasoo bilaabay magaalada Hargeysa ee Somaliland. waxaana uu sheegay inuusan tagi doonin magaalada Muqdisho inta ay xilka hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre, oo uu ku tilmaamay inaysan weli ka garaabin dhibaatadii ay u geysteen ee ugu dhiibeen dowladda Ethiopia. waxaana uu sheegay in haddii maamulkaasi isbeddel uu ku yimaado magaalada Muqdisho uu tagi doono. markana akhbaaraadka kale ee caalamka, dowladda Mareykanka ayaa waxaa war ay kasoo saartay saxafiga lagu leeyahay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay Sacuudiga inay taageeraan baaritaan cad oo lagu sameeyo saxafiga la leeyahay ee Jamal Khashoggi, kaasi oo aan la arkin tan iyo markii uu toddobaadkii tagay galay qunsuliyadda dalkaas ee Istanbul. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in Khashoggi lagu dhex dilay safaaradda, halka Sacuudiga ay sheegeen inuu si nabad ah uga baxay dhismaha safaaradooda. waxaan aragnay warar isdiidan oo ku saabsan ammaanka iyo halka uu jiro saxafiga caanka ah ee qoraalada ku daabici jiray Washington Post, Jamal Khashoggi, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska Mike Pompeo
oo bayaan ka soo saaray xilli dambe oo isniintii ah arrintan. Saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxa ay boqortooyada Sacuudiga kala hadleen arrintan iyaga oo maraya marinada diblomaasiyadeed ee labada dhinac u dhaxaysa. Hadalka Pompeo ayaa yimid saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu walaac ka muujiyay xaaladda haatan taagan. Hadda cidna wax kama oga arrintan, mana jecli ayuu Trump wariyaasha ugu sheegay aqalka cad ee Mareykanka. Turkiga ayaa isniintii waxa ay dalbadeen fasax ay baaritaan ugu sameynayso gudaha safaaradda iyadoo raadinaysa tilmaamo la xiriira saxafiga iyo halka xaaladiisa ay ku dambeysay. Waxaan caddeyn ilaa ay haatan sida saxafigaasi lagu dilay, iyadoona warar kale oo soo baxaya ay sheegayaan in arrintan ay mugdi gelin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada reer galbeedka, dalka Turkiga iyo weliba dalka Sacuudi Carabiya. Isla dilka saxafigaasi ayaynu ku guda jirnay dowladda Turkiga waxaa cadaadiskii ugu ballaarnaa ay ku saaraysaa Sacuudiga in baaritaano rasmi ah ay ku sameyso qunsuliyadiisa magaalada Istanbul. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in si degdeg ah looga shaqeyn doono sidii daaha looga rogi lahaa arrimaha la xiriira saxafigii rugcadaaga ahaa ee Sacuudiga u dhashay ee dilka loo geystay. Jamal Khashoggi ayaa la waayay kadib markii toddobaadkii hore uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Saraakiisha ayaa sheegay in Mr. Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda, meydkiisana halkaas laga saaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Sacuudiga uu caddeeyay in saxafigaasi uu qunsuliyadda ka baxay isagoo nabad qaba. Xaqiiqda ah in markii ugu dambeysay ee la arkay Jamal Khashoggi ay ahayd ku dhawaad isbuuc ka hor isagoo gudaha u sii galaya qunsuliyadda ku taala magaalada Istanbul, sidoo kalena qof uu indhaha saarin isagoo dhismaha ka baxaya ayaa ah arrinta ugu weyn ee walaaca muujinaysa, waxaana Sacuudiga ku gudan far ku aadan in arrintan isaga uu ku lug leeyahay. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sare u sii qaaday cadaadiska uu saarayo Sacuudiga si sharaxaad ay uga bixiyaan waxa la soo gudboonaaday wariyahan caanka ah ee la dilay. Shir jaraa'id oo uu kaga hadlayana waxa madaxweynaha Turkiga uu ku yiri Mr. Khashoggi waxa uu mar aad ugu dhawaa qoyska boqortooyada Sacuudiga, balse xilliyadii ugu dambeeyay waxa uu magangeliyo u raadsaday dalka Mareykanka, halkaas oo aad uga dhaleeceyn jiray xukuumadda Sacuudi Carabiya. Jamal Khashoggi oo sidoo kale wax ku qoray wargeyska Washington Post qunsuliyaddan u tagay si uu waraaqo u buuxiyo ayaa la sheegay in markii halkaasi uu gaaray kadib cidna aysan dib u arag. Markana su'aasheena maanta inta aan u gudagelin su'aasheena maanta, haddii aan dib u eegno su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradahooda saliimka ah kasoo dhiibtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Suldaanka TV si fiican baa idin salaamay. Maslax waa salaaman tahay intii oo barnaamijka oo kula daadaheynayso oo ah dhammaan wariyaasha oo qaaliga ah dalka iyo dibaddaba aad baad u salaaman tihiin, maadaama oo maanta aad noo soo dhigteen arrintii maamulka Hirshabeelle. Maamulka Hirshabeelle waa maamul oo weligiis isku qasan, waan weligiisna waa isku qasnaa doonaa sababtoo iiday tahay. Dhibaatooyinka oo qaskaas badan keenaya waxa waaye marka ugu horeysa waa xaqdara lagu dhigay lagu sameeyay, ama maamulkaas xaqdara ayaa lagu sameeyay. Shaygiina oo xaqdara lagu sameeyo weligiisii xaqdara ayuu u dhammaanayaa, amba shaygii dulmo lagu sameeyo weligiisi dulmo ayuu u dhammaanayaa. Sababtoo iiday tahay maamulkaas Hirshabeelle mar kasta waxaas asiga u hor socon waysan yahay. Waxaa ka mid ah dulmida. Dulmina waxa waaye ilaah baa macnaha aanay dulmo diiday in oo bani'aadanka dulmo ninkan kale dulmo asku sameeyo. Sababtoo iiday tahay ilaahayga baa weyne waxad ah oo wax kasta arkayo. Sababtoo iiday tahay Hirshabeelle marka oo anaga oo aan u hoos galo, aniga ahaan gaar ahaan hadda waxaan ku dhashay gobolka Kismaayo, magaciina waxaa la dhahaa Ibrahim Jamaame ayaan ku dhashay. Sababtoo iida ay tahay Jowhar dadka ugu badan waa la ogyahay, sababtoo dowladda way og tahay,
beesha caalamkan way og tahay, africa unionkan waa ogyahay, carabtan waa ogyihiin, asia qof kastan waa ogyahay. sababtoo iiday tahay madaxweynihii horey oo guuleed, madaxweynihii horey oo la bedelay cali cabdulaahi cusuble, markii la bedelay madaxweynahaas waxaa maanaha loo bedelay xaqdarada asaga uu ku socdo ayaa loo bedelay. markii la bedelayna madaxweynaha kale lasoo dooran lahay waxaa la yiray qof oo madaxweyne kale lasoo dooran kara malehe, ilaa wa ilaa qof hebel ayaa lasoo dooran karaa. adduunka inta aan joogno weligayna kama arken adduunka oo madaxweyne oo la dhahayo hebel alasoo doorto. marka hebelkii waa lasoo doortay. waxa waaye marka ragna wixis dhaho rag ayaa diiday. ragga waxa waaye lama yaso, waxa waaye ragga hadalkiisina waa isgarab dhacaa, maanaa rag ma yaraado. sababtoo iilay tahay hirshabeelle rag ayaa ku lulumanayo in oo ay madaxweynaha ay ka noqdaan amba qeyb weyn liwaax ah ay ka qaataan maamulkaas halkaas. hirshabeellena aniga aragtidayda iyo muuqaalkayga waxaan u arkay haddaan u sheego, sababto iiday tahay hirshabeelle inta sidaan hadda ay tahay oo la leeyahay oo hala soo doorto qof hebel la leeyahay, hirshabeelle weligeedna maamul kama dhismayo, mana ka dhismi doono, mana ka dhismayo. sababtoo iiday tahay waxa waaye maamulkeeda dulmi ayuu ku dhisan yahay, weligeedna dulmi ayayna ku baxaysaa. sababtoo iiday tahay ninkan hadda madaxweynaha ka ah maamulka oo kasoo baxay ka goostay maamul goboleedyada, arrimahaasna aad ayayna u fiican yihiin. sababtoo iiday tahay hirshabeelle dekedeedna waxa weeye dekeda muqdisho, kuma haysato deked kale oo meel kale ay ku leedahay. ilaan mala dagaalin karto dowladda hadda ay la dagaalinto madaxweynaha hirshabeelle wax meel kasoo galaya ma jiraan. sababtoo iiday tahay dekedooda waa deked oo magaalada muqdisho. waa sida oo kale golmudug iyadana waa sidaas oo kale dekedeeda waa dekeda muqdisho. marka sida oo kale shariifka hadda markii aan fiiriyo waa dekediisa waa dekeda muqdisho. baraawu leeyahay, baraa wax agama soo degi karo. meeshan hadda maamul goboleedyada iyo dowladda oo dhankooda marka aan galo oo iskala faaqsan dagaal kala dhexeeyo 3 maamul meesha dagaalkaas ma geli karaan, mana geli karaan. hadda ay galaanna waxa waaye waa dad oo dambiil lagu watway. dambiilna markii ninka lagu dhex rito, dambiil shay markaad ku dhex riditan, markaad rabtin waad ka baxsanaysaa, markaad rabtin waad ku dhaafaysaa. sababtoo iiday tahay arrimahaas oo maamul goboleedyada oo hadda ay isku bahaysteen oo ay leeyihiin iskaashada maamul goboleedyada, waxaa ka dambeeya maskax oo waa maskaxda garoowe. maskax garoowe ka dambeysa. sababtoo iiday tahay dowladda dhexe ayaa dhisan. markii maamul goboleedyada iskaashi ay dhistaan waxa weeye meesha dowlad kama soo baxayso, weligeedna dowlad kama soo bixi doonto. dowladda farmaajona waxa weeye maamulkan si xun ayaa loo dhaawacay, wana maamulkan waxaa dhaawacay dadka oo dowladda kasoo horjeedo oona macnaha oo diidan kablalaha daarood dhexdooda diidan. sababtoo iiday tahay markii farmaajo laga dhigayay ra-iisul wasaaraha waa dadka kasoo horjeestay, waa dadka garoowe ayaa kasoo horjeestay oona lagu bedelay in laga dhigo gaas in laga dhigo ra-iisul wasaaraha.
dantaas ayaa ku qasabtay dowladda way dhaqaaqi waysay ilaa farmaajo laga bedelo oo nin qof oo garoobi la keeno. marka asi ahaatee qof oo shalayto oo adiga oo kuu quuri waayey ra-iisul wasaare maanta aad madaxweyne ka naqatay waddanka dhan ogolaan maayo. aniga tiideydii taas bay tahay. maamulka farmaajona waxa waaye 2 sana u hirtay, 2diisa sanana sidan ayay ku dhammaanaysaa. waxaana ugu talagaleen macnaha maamulka garoowe ayaa sidaan ugu talagalay dowladda inay sidaan ugu dhammaato. qof ay iyaga ka aheeni in oo daarood oo soomaaliya dowladda federaalka as wax ka noqdo ma doonayaan. sababta iiday tahay waxay rabaan ay noqdaan amba madaxweyne hadduu hawiin noqdo iyaga inay ra-iisul wasaare iyaga keli ay ka noqdaan. ma ogola qof kale oo daarood ina soo baxo ra-iisul wasaare aska noqdo. waxa waaye maamulka garoowe haddii arrimahan ay wadaan waddanka soomaaliya waxaan arkayaa dhibaato weyn inay garoowe ku dhici doonto. sababtoo iiday tahay maamulka galmudug ayay la dagaalameen ilaa gaalkacyo 2 qeybood laga dhigo. haddina waxay la dagaalamayaan somalilan. waxay rabaan somalilan ina 2 gobol laga dhigo. kismaayona ciidina u joogo oo macnaha hadda oo maamulkooda xildhibaano ayaa xagga u joogo. sababtoo iiday tahay muqdishona federaalka ayaa u fadhiyay. wixii oo garoobe maamuladaasoo 5taas gobolna kasoo gala iyaga ayaa cunhayaan. marka soomaaliya majeertan baa iskale soomaaliya. majeertan baa lahaaday soomaaliya dadkii oo hadda usoo dhintay ilaa 27 sano oo ku sugan muqdisho oo ku sugan waxay soomaali ku hayaan male. caruurtooda walaalahooda dhan meesha ku dhammaadeen. sababtoo iiday tahay wadankii dhan waxaa qaatay macnaha garoowe qaadatay maamulkii dhan. sababtoo iiday tahay kismaayo dekedeeda qeybay ku leedahay, galmudug canshuurteeda waxbay ku leedahay. haddana waxaa u dagaalamaysaa somalilan. xamarna macnaha dekedeedna macnaha waxbay ku leedahay federaalka. intii macnaha golaha sare iyo golaha dhexe iyo wasiirarkood baa halkaas tuwan. marka soomaaliya may garoowe bay u gadan tahay. marka insha allah aniga muuqafkayga waxaan arkaa soomaaliya intii meerka qabta waa inay isku tashtaan ayna arkaan dadkan soomaaliya dhibaatooyinka ku hayaan. waa in si fiican loo arkaa. haddii la arki waayo dadka soomaaliya oo dhibaatooyinkan ku hayaan weligeeda macnaha soomaaliya dhibaatan kama bixi doonto. kheyr badanaan ku rajeeyaa. maslax abuukar xaaji wariyaha qaaliga ah waxaan ku leeyahay be safe baan ku leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب كميديا وهلك كلا هذيا ما هذا دان رأيي كديبته dhalinyarada halka joogta baa xaq u leh. dalka joogta wax ku bartay rafaadka 30 sano kusoo jiray. nin meeshuu ka yimid shaqo ka helay muxuu Soomaaliya kasoo doonayaa? dhalinyarada halka jaamacadaha uga baxday xaq ayaga u leh shaqada. nimanka dibadaha ka yimid ha joogaan meelahay shaqada ka helayaan. laakiin dadka wadanka balaanbalka iyo rafaadka iyo baaba iyo dowlad la'aanta wax ku soo bartay dadkaas xaq u leh inay shaqaystaan oo wadanka shaqo ka helaan oo dadkooda wax u qabtaan oo dadkii wax soo baray wax ka helaan ka faa'iidaystaan. waxna qarax baa lagu dilayaa waxna shaqo la'aan weeye ma yasir. dhalinyarada wadanka joogta ha la siiyo shaqada. anigu ra'yigayga waa intaa. waa hooyo Soomaaliyeed. salaamu calaykum waraxmatullahi markana su-aasheena maanta waxa ay ku saabsan tahay daawadayaal. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudan xasan cali khayre waxaa lagu soo waramayaa in safar degdeg ah uu ugu ambabaxay
dalka Sacuudi Carabiya iyadoona safarkan uu kusoo beegmayo xilli uusan wanaagsaneyn xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Sacuudiga haddaba safarka uu ra'iisul wasaaraha ku tagayo dalka Sacuudi Carabiya waxa uu ka bedeli karaa xiriirka aan wanaagsaneyn ee muddooyinkii ugu dambeeyay u dhexeeyay Sacuudi Carabiya iyo waliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si aad fikirkaaga nala wadaagto dhanka iyo WhatsApp-ka ayaad codkaaga noogu soo duubi kartaa adigoona ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto guud ahaanba waa inaga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka tube xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxaa warka idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji tan intaynu ku kulmi doono warkan kan xiga waxaan idinka tagaynaa sida iyo nabadgelyo nooli kulantay amaana Allah